xaflad ay soo qaban qaabiyeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ee dalkan Finland laguna taageerayo musharaxiinta madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa ee xisbigu ku doortay shirweynihii golaha dhexe mudane Muuse Biixi Cabdi iyo mudane Cabdiraxmaan Saylici ayaa waxay ka dhacday magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland. xafladda ayaa waxaa hadallo kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye laanta Finland, odayaasha aqoon-yahanka dhalinyarada iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladda. hadalladoodina waxaa ka mid ahaa: Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa marka hore mahad ilaahay mar labaadkana waxaa hanbal leh u mahadnaqayaa dadweynaha reer Finland ama jaariyadda reer Finland ee isugu timid inay hambaliyeyso oo bogaadiso xisbiga kulmiye musharaxiintii xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici. waxaan hadda u soo jeedinayaa xubnaha sharafta leh ee ka soo qayb galay shirkan aynu maanta halkan ku qabanayno ku taageerayno labada musharax ee xisbiga kulmiye ay u doorteen 10kii bisha 11aad mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici. sideedaba dimuqraadiyadu waxyaabaha saldhigga u ah waxaa ka mid ah in qof volunteer yahay oo waxaan uu rabo ee maskaxdiisa ku jira isagoo ku dhaqaaqo uu fuliyo isagoon cid kula colaatamaynin isagoon weli uga dan lahayn. waxaa kaloo shardiyadeeda ka mid ah in macnaha marka cod la qaado ee tartan yimaado codkaa lagu kala baxo ninka laga badiyaana uu raaco ninka ka bediyey ee codadka badan helay. codintu waa codadka maaha raganimo maaha aftahamyo maaha waa dadka gombolka ku jira ciday raacaan rabitaankooda. anigu waxaan taageerayaa madaxweynenimada Muuse Biixi iyo ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici. waxaan kaloo sii taageerayaa ninkii uga tanaasulay weli maanta waa maalintiinii idinku hooya kasoo qaybgalayaasha waa salaamayaa. waxaan u hambalyeelayaa halkan u hambalyeelayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Siinayo go'aan qaadashadiisii tuulay waan u hambalyeelayaa. waxaan u hambalyeenayaa labada musharax Muuse Biixi Cabdi musharaxa madaxweyne xisbiga kulmiye iyo musharax Cabdiraxmaan Saylici. markuu halgamayay intuu hubka qaatay dadkiisa habeeyay hululaha buurta Hargeysa gudaheeda ilaa iyo hawdka markuu hardafayay hawada su'aale kaari ordaya halkee buu ku maqlaa maxawaas iyo bay hawada samadeena haddu kooymiya ujeedada shirku iyo madalkiisu haweeney inaynu bogaadino sidii hadda la sheegay shirweynihii xisbiga kulmiye. waxaan la soconaa 8 bishii November waa tii shirweynuhu dhacay. hadduu dhacayna ujeedada ugu weyn shirkaas u qabsanay waxay ahayd in laga soo saaro musharaxiinta xisbiga kulmiye u muddo doonta doorashada 2017 sida u dhacayna la soconay. waxaa markaa inoo soo baxay haddaynu daaweynta kulmiyanahay ee gudaha iyo dibadda joogtaa mujaahid Muuse Biixi Cabdi ama Muuse Cabdi Xuseen iyo injineer Cabdiraxmaan Saylici madaxweyne ku-xigeenka hadda jooga inay noo tartamaan oo ayna ka qayb galaan doorashada soo socota ilaahay ka dhigo. xisbiyada waxaa loo bartay waa heer muramada u gaadho. xisbiyada waddankana ay jooga waxay jiraan 100 sano. waxay u jiraan 100 sanona waxay leeyihiin aaminaad iyo kalsooni iyo qorsheyn. markaa Somaliland xisbiyada imika waxay jireen almost 20 sano. 20 sanona xisbiga kulmiye waa xisbiga keliya ee madaxweynuhu markii madaxweynaha ku guuleystay musharaxiinta uu gudoomiyey wareejiyey oo haddana sida xaqooda 5 sano kale haddana wareejiyey. markaa taas waxay keenaysaa in wax loo yeelan karo in dadka xisbiga ku bahoobay ay isku dhiib si dimuqraadi ku jirto isku doortaan oo ay samaystaan kulan ay isku doortaan. anigu waxaan jeclahay inaan mid ku bilaabo. horta hambaliyada maanta waxaa mudan waa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland
mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo nastal modeelihii labaad ee afrika ah. marka labaad waxaan halkan hambaliyo gobaaradiyagana uga dirayaa musharaxa madaxweynaha xisbiga xoogiye mujaahid muuse biixi cabdi oo ah siyaasi si weyn inuu garanayno halgamaa mujaahid waxa bil-aadan bixiyaa waa nafta ku jirta iyo dhiiggiisa oo ahaa raggii dadkan iyo dalkanba dhiigooda usoo huray. waxaa kale u hambaleynaynaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane injineer cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayide. gabagabadii xafladda ayaa waxaa khadka taleefonka kaga qayb qaatay musharaxa madaxweyne ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka hadda ahna musharaxa madaxweyne ku-xigeen mudane cabdiraxmaan cabdilaahi saylici, iyagoo hambaliyo iyo mahadcelin u jeediyey dadweynihii isugu yimi xafladda, kuna booriyey in taageerayaasha xisbiga kulmiye gacmaha isqabsadaan dal iyo dibadba. maxamed xasan mataan, telefishinka qaranka Somalilan, Helsinki, Finland.